waxaa mashaariicda noo qorshaysanaa sanadkan inaan qabanno. Mashruuca koowaad waxaa qiimeynta waxqabadka hay'adda garsoorka iyo garsoorayaasha, qalabaynta maxkamadda guud iyo maxkamadaha gobollada, dayactirka gaadiidka maxkamadaha, dhamaystirka dayactirka maxkamadda guud iyo maxkamadaha gobollada, iibka qalabka casriyeynta qolka dhageysiga dacwadaha ama meesha la yiraahdo jiloodka, rakibaadda iyo tababaridda qalabka casriyeynta qolka dhageysiga dacwadaha, 4 bajaaj oo lasoo iibinayay, daraasaadka qanaca macaamiisha adeega ay bixiyaan maxkamadaheenu, tababarka kobcinta xirfadaha iyo habka adeeg bixinta maxkamadaha, tababarka barnaamijka kaydinta iyo maareynta xogta dacwadaha maxkamadaha iyo daabacaado. Mashaariicda guud ahaan noo qorshaysan hortaas oo mashruuc ayay ahayd. Koowaad haddaan ku horeeyo, kormeerka 2 nooc ayaa loo fuliyaa. Mid waa mid ay maxkamadaha sare ee gobolladu fuliyaan maadaama maxkamadaha degmooyinku ay hoos yimaadaan. Dhammaan maxkamadaheena degmooyinka oo dhan waa la kormeeray oo tiimam ka socda guddiga garsoorka ee gobollada ayaa kormeer ku sameeyay. Waliba hadda bishan u dambeysay maxkamad degmo oo aan la kor istaagin oo aan faylasheeda la eegin garsoorayaasha iyo qaabkooda shaqo ma jiro. Waxaa kaloo anagu heer deegaan fulinaa kormeerro kedis ah oo iyadan la sii wargelinayno si kedis ah ugu tagno gobollada iyo degmooyinka qaar haddii meeshaasna shaqadu inay tabcaan ka yara tahay aan dareeno. Kormeerada kediska waxaa lagu sameeyay maxkamadaha sare gobollada Jarar, Qoraxay, Shabeelle iyo Nogob iyo maxkamadaha magaalooyinka Qabri Bayax, Dhagax Buur, Qabri Dahar iyo Goday. Intaa waxaa dheer in kormeer kedis lagu sameeyay maxkamadaha degmooyinka Qabri Bayax, Araarso, Dhagax Buur, Shaygoosh, Qabri Dahar, Dhanaan, Goday iyo Ceelweyn. Intaaba in maxkamadda guud ee deegaanka tiimam ka socda ay tageen si kedisana iyadoo aan welibana loo sii sheegin aan shaqooyinka qabanay. Qiimeynta warbixinta xilligii ay jeedin jireen maadaama ka soo horeyso garsoorku wuxuu shaqeeyaa ilaa bisha sano. Marka shaqadu xidhanto waan inta badan qiimeynta qabanaa. Marka qiimeynta garsoorku guud ahaan waa weli oo shaqadii way weli ku jiraan sano maadaama fasax galayaan intii ka dambeysa. Iyadoo saato qiimeyntii guud aan weli qaban laakiin waxaan qiimeynay oo dhamaystirnay hadda garsoorayaasha ku qoran iyo registrarada gobolka faafan oo dhan waan qiimeynay. Qiimeyn shakhsi baan gelinay. Qiimeyntii kale shaqadana waan sameynay. Labadaba waan sameynay. Qaablaadda iyo ka jawaabista cabashooyinka waxaana soo gaaray 146 cabasho sanadka. Cabashooyinka waxaan ugu talagalnay inaynay dhinacna noqonin kuwa jiloodkii lagu bedelo laakiin qaladaadka ka jira maxkamadda iyo qaadista dacwadaha ayaan cabashooyinka ku dhageysanaa. Marka guud ahaan sanadka waxaana soo galay 146 halkaas 139 cabasho aanu ka jawaabnay. 7 hadda weli baaristii noogu jiraan. Marka waxaan leenahay sida caadiga 2 cisho dadka qaabilay sida xafiisyadaba maalinka Salaasada iyo maalinka Khamiista labadeeda gudoomiyada waan qaabilnaa dadka cabashada u socda. Marka maxkamadda laga cabanaya meesha doonta ku taalo qofka cabashada intaan ka qornayna saxno ayay noqonaysaa. File auditing wuxuu daba socdaa isaguna kormeerkii hore kor ku soo sheegnay oo marka maxkamadaha la tago waxa la sameeyaa faylal sample la qaadan. Faylasha sample marka xalay garsooruhu sidoo maray process-ku masaxsan yahay. Marka maadaama xagga hore ku degdega iyo kediska ay kamid ahayd waxay sheegaysaa faafan Jarar, Qoraxay, Shabeelle iyo Afdheer in lagu sameeyay. Waxaa lagu magacaabay 254 xubnood oo kaaliyayaal weyn. 254 waa kaaliyayaal dad jaamacadda Waadhawey la geliyay oo degmooyinka oo dhan laga soo xulay degmooyinka badankooda oo imtixaan la geliyay baa jiray. Marka dadkii magacaabistoodu waa kaaliyayaal garsoore oo dadka mustaqbalka insha Allah aan rabno inay garsoorayaal noqdaan. Waa la magacaabay welina process-kii way ku jiraan fariin laga qaado iyo mushaaraadintooda iyo waxaas ay ku jiraan. Magacaabistu waa 7 xubnood, 3 gudoomiye, 3 waa gobolka faafan maadaama qiimeynta sameynay waa 3 gudoomiye oo maxkamadeed oo degmooyin iyo magaalooyin isugu jira. Magaalooyinka Jigjiga, Wajaale iyo degmada Qabri Bayax way 3 gudoomiye, 1 garsoore iyo 3 registrar. Bedelaad waxay talaabo qaadka ka soo baxday inaan 7 xubnood aan bedelno meelaha ku qornay inaan ka bedelno meelo kale aan bedelno
faahfaahintoodana way muuqdaan 2 gudoomiye 4 garsoore iyo diiwaan haye waxaan dalacsiinay waa 3 2 garsoore iyo hal register marka la sugayo waa 3 waxaan hoos u dhignay 4 xubnood 2 gudoomiye garsooreyaal caadi ah ka dhignay 2 gudoomiyaal oo xil hayay 2 garsoorena kaaliyaal baan ka dhignay manayna garsoore si ahaan karin baan go'aaminay iyo waxa qualification laakiin anshax ahaan inaan garsoore ahaan karin marka digniin kama dambaysa waxaan siinay hal qof waxaan shaqada ka joojino hadda baadhis noogu jira 4 xubnood oo ku kacay misconduct marka baadhistii ku jiraan guddiga anshaxa eegaya marka guddiga garsoorka uu soo gudbiyay talaabadooda la maray iyagana waxa sharciga la horgeeyay hal registrar diiwaan haye oo xiran hadda oo talaabadu wuxuu sameeyay ama lagu tuhmay ay noqotay sharciga la horgeyn karo oo sharciga la horgeeyay wax xiran waxa kale oo la ceeliyay hal kaaliye inta markaan kaga baxo saddexda fadhi wixii ka soo baxay tayeynta adeeg bixinta garsoorka tayeyntu waa dhowr nooc weeyaan midna waa adeegii dadka loo hayay si loo hagaajiyo goobta iyo dadka la hagaajiyo labada nooc bay noqonaysaa waxa daraasad lagu sameeyay maxkamado gobolada sida Jarar City Erer Qoraxay iyo Doolo oo sida ay baahiyaha ay qabaan oo sida loo dayactir karo kulay waa daraasada wala soo sameeyay waxaana dhibta jirta ay tahay maxkamadaha deegaanka dhismihii hore la dhisay mooyaan marna laba dayactir deegaanka sidii maxkamadaha deegaanka loo dhisay laguma noqon oo waxa muuqda qaab maamulkana ka yara go'an yihiin halkan heer deegaan aan miisaaniyad lagu dayactiray aan la qabanin marka dayac badan ba ka muuqda dhammaan maxkamadaha ilaa kuwa degmooyinka qaabisnad kale marka daraasada wala sameeyay maxkamadda guud iyadoo waxaan sameynay dayactir dhameystiran oo ilaa sanadkii hore socday dayrkii ay wadada corridor ku dumiyay iyo wajahadiiba waa la sameeyay horeelka shirarka waa la dhameystiray marka maxkamadda guud dayactir dhameystiran baan ku sameynay maxkamadaha hadda daraasadooda aan sameynay hadda mooyaane lama dayactirin waayo maxaan ku dhahdaa maxkamadaha gobolada lama dayactirin laakiin daraasadii ma sameynay ilaa hadda baabuurta la dayactiray 9 baabuur maxkamadda maamulka magaalada Jigjiga oo dayactir dhameystiran baan runtii ku sameynay lacag la 5 milyan aan ku bixinay dayr baan u dhisnay meel registerka baan dhisnay sanitishkii waxaan u hagaajinay meelihii jinkada dusha dhan laga qaaday biyaha soo daynaysay dib loo ranjiyay ku lacag 5 milyan aan ku bixinay oo miisaaniyadeeda una marka si degdeg ah magaalada caasimadda ku taalo iyada dayactir dhameystiran ma kulli ku sameynay qalabeyntana hadda kulli qalab baan u dalabnay oo in dhammaan la bedelaan ramaajilodka ka bedelan wax loo xiyaalay laakiin xafiisyadana hadda insha Allah inta sanadku dhamaanin baan rabnaa xafiisyada wax qalab yaalay in bedelno hadii la say uga tilmaanaanto maxkamadaha kale maadaama maxkamadda caasimadda ay tahay inta markaan maxkamadda qalabka jiroodida soo iibinay wixii soo haray u kala dirnay gobolada halka ku yaala Jarar Dhagaxbuur Araarso Shabeelay waa wixii soo haray na 100 foom waaweyn marka hore ku dhaadheer baan jirood kaliya soo dalabnay dan 17 kaliya jirood ku qaaday dan degmooyinka dhow hal loo diran dhintii kale xafiisyada qalabka xafiisyada sanadkan waxa la kala geeyay gobolada Doolo Liibaan Jigjiga iyo Dhagaxbuur waxa kale oo maaragtaa buugaantan hadda aan haynay iyo waxyaabahan bay sheegaysaa taasi kobcinta awoodda garsoorka waxa la qabtay sanadkan tababaro lagu kobcinayo xirfadda garsoorayaasha iyo gudoomiyaasha iyo diiwaan hayaasha ka howlgala maxkamadaheena waxa markaa la qabtay tababaro kala duwan oo 12 nooc oo hadda halka warqada ku sirsaran isugu jira sanadka la qabtay 12 ka nooc dhageysiga dacwadaha adeeg bixinta kaydinta maalinta iyo xogta habka xukun qorista habka heerka ciqaabta anshaxa xirfadlayaasha cadeymaha oo bayaankii dhawaan soo baxay aan ku sii tababarnay inkastoo wali la taabicin laakiin waa ku sii tababarnay garsoorka si marka la taabaco iyagoo la sii haysta oo sharcigaas u yimaado awaamirta xadaynta xeerka ciqaabta dib loo habeeyay isagana waxba laga bedelay awaamir cusub oo 3 tirsigeedu yahay soo baxday iyadana waan ku tababarnay garsoorka arrimaha doorashooyinka markii doorashadu soo dhaweyd maadaama sharcigu dhigayo in maxkamadaha deegaanka ay qaabilaan cabashooyinka ka dhanka go'aanada uu guddigu soo saaro 4 nooc oo cabasho la jirta cabashooyinka la xiriira diiwaangelinta codbixiyaasha
cabashooyinka la xiriira diiwaangelinta musharaxiinta, tirinta codka iyo natiijada. Labada dama maxkamadda federaalka awood u leh markay tirinta iyo natiijada noqoto. Labada horena maxkamadaha deegaanka weyn haddii musharax uu ka cabanaya diiwaangelinta ama qof cod bixiya. Marka wixii waajibaad nagaga aadanaa waan sameynay, jiloodyadii waan sameynay, garsoorayaashana waqtigaa waan tababarnay. Laakiin wax cabasho hawsha ku saabsan oo loo yimiday ma jiro. 72 goob doorasho waan ka sameynay arrinta. daraasaadka qanaca macaamiisha qodobkii ahaa waa la sameeyey. waxaana maxaan ku daraasaadka laga fuliyay 51 maxkamadood. maxkamadahaasi oo kala hoos yimaada gobolada Faafan, City, Jarar, Qoraxi, Shabeelle, Afdheer iyo Liibaan. daraasaadkan wuxuu muujiyay markaa 60% inay weli ka kormarsan tahay moodaa intii minimumka ahayd. weydiimaha waxaa la weydiiyay 252 macmiil oo dadka maxkamadaha adeegga ka soo doontaan. sababta ay 60kaasi runtii u sareysaa waxa weeyaan labadii dhinac baa la weydiinay maxkamad yimiday. marka kii laga xukumaa wuxuu oran meesha waxba ma jiraan booran marka meesha cadaalad raashdo laaluush baa asaas u oran kala xukumay. marka way yiriin dad aad u yaro dadka laga xukumay baa cadaalad bay hayd oranaya. marka sababta 60 mar walba ayna 100 u gaari doonin kulli. maareynta dacwadaha iyo dakhliga soo xorooday dhinacani waa dhinaca ugu muhiimsan ee adeegyada aan bixino. guud ahaan sanadkan waxaana soo galay 9825 gal dacwadeed ayaa maxkamadaha kala duwan ilaa hadda soo galay. waxaa go'aan helay 8525 gal dacwadeed. waxay u eeg tahay inay gudbi doonaan 1300 oo gal dacwadeed. marka waxay ka dhigan tahay 87% inay go'aan heleen. dacwadaha ciqaabta ah ama dambiyada ah waa 2890 dacwadood. dacwadaha madaniga waa 6935 dacwadeed weeyaan. marka dacwadaha madaniga waxa laga qaadaa cashuur oo dacwadaha madaniga waxay leeyihiin cashuur laga qaado iyo ganaaxyada iyo waxaas oo marka guud ahaan marka la isku daro sanadkan waxaan dacwadaha ka soo xireynay lacag dhan 40,191,591.38. waxa ugu badan oo dakhliga ugu badan soo saartay maxkamadda guud 12,987,437. maxkamadda sare ee gobolka Faafan ama maxkamadaha gobolka Faafan oo dhan bay noqon 12 milyan. marka sababta maxkamadda guud u badatay waxa weeye waxa ku jirta tii mashaariicda ku jirta runtii oo laga shubo mashaariicda laga shubo. shaqooyinka dheeriga ah ee ilaa hadda aan qabanay waxaa ka mid ah rakibaadda video conference-ka iyo shaashadda balama waxyaabahan ku jirin miisaaniyaddii iyo mashaariicdii noogu jirin ilaa hadda qabanay. rakibaadda video conference-ka iyo shaashadda balamaha marka waa la rakibay. qalabkaasi waa qalab si gaar ah aan u soo iibinay. qalabkaas gaar baan u soo iibinay. waxaa kaloo video conference-ka lagu rakibay oo maxkamadda guud ka caawisay commissionka asluubta iyadoo la siiyay qalabka halkaa ku cad flat screen-kii kuraasidii loo baahnaa oo loogu talagalay haddii ay maxaabiista loo baahdo inay halkaa ka soo galaan oo maaragta cabashadooda toos ugu soo gudbiyaan jiloodka ee halkaasi meel loo diyaariyo xafiisa oo halkaa ka soo waxaynayaan. waxaan hagaajinay wada shaqeynta hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda. waxaan qabanay ilaa hadda 4 kulan oo kulankii la oran jiray cadaaladda iyo garsoorka kaasoo lagu turxaan bixinayay adeeg bixinta aan hayno iyo wada shaqeyntana lagu hagaajinayay. dib u eegista iyo qiimeynta qorshaha istiraatijiyadeed 10 sano. waxaan sameynay kulay sanadka markii koowaad inaan maxkamadda bal dib u jahayno anagoo hogaamintii hore iyo xubnaha sharciga bartay oo deegaanka ah. xubno ka mid ah guddiga joogtada ah ee baarlamaanka, madaxda guddiga sharciyada, guddiga wasaaradda sharciyada ee baarlamaanka iyo aqoon-yahano ka socda jaamacadda Jigjiga intaan kulay kulan u qabanay aan kala tashanay warbixinta sanadka soo socda 2019 iyo saan u jihayn lahayn qorshaha dheer ee maxaan ku dhahaa loo gaari lahaa yoolasha ku jira qorshaha. taasi oo runtii minidkii iyo wixii loo baahnaa ka sameynay anagu talagalnayna in aqoon iyo meesha lagu hago kulay aragti dheer. waxaan dhamaystirnay qaab dhismeedka maxkamadaha iyo xeeladayaasha ay u baahan tahay maxkamaddu. qaab dhismeedka maxkamadda guud oo waxyaabihii shuruucda dhawaan sanadkii la soo dhaafay laga bedelay ee qaab dhismeedka aan
qaab dhismeedka u baahan yahay in wax lagaga bedelo baan kulley ku sameynay daraasad tusaale yaro kooban dhexdhexaadinta oo kaleba kulley kusoo kordhi doonta qaab dhismeedka maxkamadda oo dacwadaha la rabo inaanay inta badan nidaamkan maxkamadaha tooska aanay gelin lagu xallin doono dhexdhexaadintaasoo inta badan dacwadaha la xiriira dadka shaqooyinka wada shaqeeya hadday shaqaalaha iyo loo shaqeeyo isqabsadaan dadka ehelkii hadday hanti isku qabsadaan arrimahaasoo dhan sharcigaasi dhigaya awaamiir weeyaan ay guddiga soo saareen oo waxaa la rabaa dadka waxa ka dhexeeya uu ka badan yahay waxa isku hayaan in dhexdhexaadin lagu eego arrintooda runtii halkaa lagu dhameeyo oo waxaa ku cad awaamiirta dhexdeeda waxaa ku cad dacwadaha inta badan ay tahay in dhexdhexaadinta lagu eego marka nidaamka maxkamadda caadiga maadaama dadku ku kala fogaadaan dadka waxa ka dhexeeya uu ka badan yahay waxa isku hayaan in xaggaa loo divert gareeyo noqon dad ehela oo hanti isku haya dad isqaba oo kale hadday hanti isku qabtaan in dadkaasoo dhan xaggaa loo raaciyay inuu sii kala fogaan xoojinta adeega sharciga la sii danyarta maxkamadda guud waxaa ka dhisan xafiiska qareennada dawliga ah la yiraahdo oo ay qareenna ka shaqeeyaan qareennadaas waxaa loogu talagalay dacwadaha ciqaabta ah dadka danyarta qofka aan qareen qabsan karin dacwad dambi culus ku eedeysan inay lacag la'aan ugu doodaan marka guud ahaan intaasoo qof baa la metelay guud ahaan waa 272 dacwadood oo wada ciqaaba 272 baa go'aan helay halka 37 ay socdaan mushaar kororka waxaan helay kulley mushaar kororkii garsoorku wuxuu ka hadhay shaqaalihii kale deegaanka oo sidii sanadka bilowgiisa ay shaqaalaha kale deegaanka u heleen garsoorayaashu miina helin waxaan ku guuleysanay in ay mushaar kororka helaan lacagtana laga bixiyo sidii shaqaalaha kale looga bixiyay miisaaniyadda kaydka ee federaalka waxaa kaloo markaa la siiyay garsoorka deegaanka payback in bilihii la soo dhaafina ay helaan iyadoo hal mar wadar duuduub ah la siiyo khibrad wadaagyo waxyaabaha dheeriga fulna khibrad wadaagyo baa kamid ahaa khibrad wadaagyaasi oo aan ugu tagnay maxaa la yiraahdaa maxkamadda guud ee federaalka iyo maxkamadda guud ee deegaanka Oromiya waxa intaa dheer inaan heshiis la galnay tribunal la yiraahdo maxkamadda Ethiopian Capital Market Administrative Tribunal wax dhawaan la aasaasay oo arrimaha ka garnaqda inaan kulley dhawaan halkan maxkamadda guud ee Hiroorida maxkamadda guud ee maxkamadda Dirdhaba iyo maxkamadda deegaanka Soomaalidu waa dhawaan halkan aan kulley ku kulannay oo jijiga kulankaas ka dhacay wada shaqeyn markaa maadaama nooc soo kordhay tahay maxkamad soo kordhayna ay tahay qaabka wada shaqeyneed ee maxaan ku rahdaa labada maxkamadood u dhaxaynaya ayaa kulley halkaa ku sameynay caqabadaha jira waa kulley caqabadihii ay weydeen sanadadii horena la soo sheegi jiray maxkamadaha degmooyinka oo aan helin miisaaniyadda sidii loogu qorsheeyay ama loo qoonday qaar baa dayactirray waxba loo qabtaa inta badan lama helo mushaar kororka oo kale wax 40% oo dhowr sanad ilaa hadda daacsanaa baa jiray hoy la'aan haysata dhammaan garsoorka deegaanka garsoorka waa la bedelay oo waxyaabaan shaqaalaha kala sinay waxaan garsoor la jooga ma jiro ehelkiisa ama xaaskiisa la jooga sida ay tahay haddana ma haystaan garsoorayaasha deegaanku hoy ma haystaan mushaarka garsoorka oo aad uga hooseeya deegaamada kale ilaa hadda iyadoo kororka la sameeyay haddana deegaanada kale mushaarka garsoorayaasha deegaanku aad buu uga hooseeya runtii aad buu uga hooseeya gaadiid la'aan ka jirta inta badan maxkamadaha